jecel inuu dadka kala hadlo murugada weli sii soconaysa ee dalka Soomaaliyeed weli ka taagan sidee xal loogu heli karaa xumaha see dadka looga dulqaadi karaa runtii waxaan is-iri bal qaabka ugu habboon ee bulshada wax looga bedeli karaa waa suugaanta waxaan galabta ku faraxsanahay xildhibaan galabta waxaan islahaa marna isu ekeysiyey Cumar Xasan al-Bashiir ka Suudaan waxaa jira isagaa la ciyaaray dadkiisa dadka lagama sarreeyo dadku inaad xanuunka la wadaagto farxadda la wadaagto qosolka la wadaagto ayaad dadkooda ku tahay waxaan rabaa inaad mid ogaataan Soomaalidu isqaybqaybisi haddii la isqaybqaybiyaa maalin waa la yimaadaa oo qaaranka la iga qaadaa maalinta qaaraan la doonayo in la iga qaado haddii la isoo doono maalinta xumaha iyo magaxumadu ay timaado in la isoo doono oo la yiraahdo maalinta ay magaxumo timaado xildhibaan oo hebel qaraabu kula yahay wareedha maalinta maalka iyo maalka waxaan u jeedaa hantida magacana waxaan u jeedaa darajadu ay timaado maxaa wax la iga sii waayay haddaan qaraabo kula ah runtu waxay tahay inaanan dhaafaynin galabta waxaan rabaa haddaad awoodi kartaan aniga ma heesi aqaano isku day waa sameeyey laakiin waxaa la isoo baray sida dadka loola hadlo isku day waa samayn lahaa waan idinka qoslisiinaya haddeen dhow barnaamijka laakiin waxaan rabaa waa gabyaya waa shirbaya inaad isiisaan 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo galabta waxaan halkan jecelahay inaan idin sheego dadka aad tihiin quruxda aad leedihiin muxuu ahayto waxa aadanuhu ay idinka aaminsan yihiin iyo meesha aad idinku joogtaan waa ku faanaa aniga magaalada London oo aan deganahay suunkaanaan ku qaataa waxaan jecelahay inaan Soomaali ahay dadka inay arkaan waxaan jecelahay inaan xaafadaha ka soo jeedo waxaan iraadaa intaan ka timid kaarana ka yimid weligeyga ma degayaa waxaan buuggaan markii aan qoraayay waxaan isku dayay xiriiro aan la sameeyey dad badan oo magaalooyinka Soomaaliya ku yaala hogaamiyayaal fara badan hogaamiye marka aan leeyahay waxaan uga jeedaa kuwa bulshada wax loo weydiiyo ay ku jiraan abwaaniinta waxaa ku jira Maryam Mursal Ciise Faadma Qaasim Hawleyle Ilaahay naxariistii jannaha siiyo Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi Maxamed muxuu ahaa ninka kabanka aadka u tuma Xudaydi waxaa ku jira bal tilmaamihii wanaagsanaa Soomaalidu ma ogtahay maalinta anigu hadda magacayga inta garanaysa ama muuqayga taqaana waxba ii tarimayso geeri dabadeed inay amaantaan waxaan rabaa maanta inay ogaataan midaas qofku amaan wuxuu leeyahay inta uu nool yahay qofku waxba ma tarayso inaad tiraahdo yaasiin maxaa sidaas ahaa ama dhaqana ahaa ama baarliina ahayd ama xuseen madooba ahaa ama maxamed cajiib ayaa sidaas ahaa ama koronto aadad macno ma samaynayso haddaad jeceshihiin ammaantaydu waxay tahay inta aan noolahay geeri dabadeed waxaan ilaahay ka samaystaan loo tagaya ma ogtahay wuxuu yiri nin abwaan uu hadlaayay naxariistii jannaad wax siiya abshir nuur faarax bacadle wuxuu yiri suugaantu waa qayb ka mid qalabka taariikhda wuxuu yiri nin walba diiwaano qoran baa wuxuu yiri nin walba wuxuu noo qabtiyo diiwaano qaran baa jiro loogu qorayaay qof qaruurad calan soo dejiyay qoomamee abide anigu ma ogtahay inaan idin doorto oo Soomaali ahaado watan markii hore ka hadlaayay anigu ma dooranin in la igu ciqaabaan xaq u malihi wuxuu yiri Soomaali bala loo qoray oo qalinka loo saaray wax ka daran qabiil jahannama qiray aqoontayda adartaana iga hilisay qolama sheegteen ani Cabdulla Raagayna ku qorahay ma dooranin ilaahay isaga ii dooray laakiin ma aha in cadaaladda ka fogaaday haddaan wax ka sheego amaano oo wuxuu uu ahaa aan sheego aniga gaf kuma gelin waxaan rabaa inaan idin sheego maalmihii tartanka siyaasadeed iyo isdilku dadka Soomaaliyeed uu bilowday waxaa Muqdisho ka abuurmay wargeyso badan oo wax qora waxaa ka abuurmay idaacado badan oo wax warbaahiye nin dhintay oo aan jeclaa runtii waxa uu sheegaan ay u badnaayeen 90% isagoo been sheegay ani ma arkin laakiin dadku waa xanan jireen wuxuu yiri ninaan weydiiyo waxaan ku iri waniyo idaacaddii radio Muqdisho maalmihii dawladda aan haysanay dadkuna ay dawladnimada aaminsanaayeen waxaa jira dadku marka ay dhibaatoodaan waxay dib ay u noqdaan waxay isweydiiyaan wixii ay soo mareen qaraarka maanta ay haystaan iyagoo marka aan arkaynin waxa maanta ay haystaan shidada maanta haysata arkay wixii shalay la haystay waa dhaantay bay is yiraahdeen wuxuu yiri wareedda haddana maxaad ugu haysataa haddii reerka wuxuu yiri haddaad jeceshahay inaad dadka wax u gudbiso idaacad reerkaagu leeyahay maad samaysatid buug reerkaagu leeyahay
annagu waxay ila tahay mas-uuliyad gaar ahaan mujtamaca u haynaa haddaan suxufiyiin nahay haddaan wariyayaal nahay haddaan qorayaal nahay haddaan suugaanley nahay mas-uuliyad ka duwan ta kale ayaana saaran mujtamaca intiisa kale ilaahay hortiisa ballantii iyo axdigii aan la galnay kuma jirin inaan qoys soomaaliyeed uga hilino ka kale kuma jirin waxay ahayd inaan isku si dadka uga adeegno aniga ma dhibsan jirin waxaan rabaa ninkii halkan ka hadlaayo saaxiibkay ahaa nuuriyow magaca kale ma sheegaayo isaga waayo magaca kale ma sheegaayo xuseen nuuriyow wuxuu yidhi heesta ani markaa qaaday waa laygu canaanta laakiin ninkaasaa tiri oo kaale aniga heesta reediyo muqdisho markii ay ka bixi jirtay oo hargeysa iyo ceelbuur la sheegi jiray ma xanaaqi jirin adi hadda maxaa u xanaaqaysa waxaan rabaa inaadan xaqiiqa weligaa ka gabanne ma og tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yacni maxay ahayd to wuxuu yidhi hadalkayga waa qurxinaya meelaha qaar maxaa jira inta badan waxaan ahay nin aanan ka lexleexanin runta xildhibaan waan ka dhexgeliso xuseen nuuriyo waa nanes aniga magacayga rasmiga waa xuseen cabdulla calasow waxa ay dhalay oday maaragtay shirbow ah oo la yaqaano oo caan ah oo hadda ka hor la yidhi cabdulla calasow barrow iguma caawinaajido ani waxa ay dhalay oda cabdulla calasow barrow walaashay xaawo halkaana degantahay marka xuseen nuuriyo waa iska naanees laakiin magacaygu waa xuseen cabdulla calasow marka barasho wanaagsan magac kale ma jira xildhibaan kaa qalinaysa maxaa waaye magacaa qalinaysa maxaa waaye kaas mar horaal waa tegey waa inaad ammaantaan mulkiyo magac maaha waxaan ku faraxsanahay inaan galabta idiin sheego magaaladan maayarkeedu maanta uu joogo 30 sannadood kadib burburkii dowladnimo ee Soomaaliya ama in ku dhow 84 ayuu Mustaf Abuukar Calasow aan saaxiib ahayn inaan ooyo waxaan u jiraa in yar waxaad garan kartaan codkayga sida isku bedelay xanuunka shidada iyo dagaalada ka soconaya Soomaaliya qoys Soomaaliyeed oo ay saameyn ku yeelaneen inuu jiro aniga ilama aha 30 sannadood ka hor 86 ayuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالة أن تجنها كتلفون من الحصل إن كان وراك أسلوب سكرنا دكسو قرآن لا دكسو أصلح كحسوس تاني ما دكسو غير إن شاء الله. رانيجا هذا سيدي ولا تنسى نضيف كده ما أنت إن أقوى كم حق على تونتي حنون قلبي جاي أنا مش شيء اسم الله هاي دتك الله بربارتي دتك الله كرتي دتك dugsiyadii hoose dhexe iyo sare iyo wuxuu ahaa dugsi quraanka gobolka murfada aad kala goosan jirteen canjeerada aad wadaagi jirteen ayaa intaas kala qulaanaysan qalbigayga mar iima sheegay waxaan rabaa inaan usoo noqdo ujeedada kulanka aan maanta uga qayb galayo runtii waxay ii tahay sharaf gaar ah inaan in badan waxaa ka mid ah nin halkaas jooga oo sheegu waa badan yihiin sheegu moogtahay muraayadahan isku fiirinaya anigoo oo garka iska xirxiiraya markaasaan idhi sheegu waa badan yihiin sheegu waa badan yihiin shib maxay ahayd shir iyo sheeka maa ii taal haddii maxaa muxuu ahaa shafkaan ka ciroobaye shir iyo sheeka maa ii taal maxay ahayd itoosi muxuu ahaa waxaa dhici karta inaan shafkaan ka ciiraystayo shiriyo sheeka maa ii taala shalay dhahaani xataa waa moogtahay waa baashu waa kugu soo dhacaysa haddaad dad muxuu ahaa yaqaana aad deris la noqotid waxaan jecelahay inaan deris idinla noqdo deris aad ila noqotaan ila wadaagtaan wixii safarka dheer aan usoo galnay